waxaan aad ugu faraxsanahay inaan soo dhaweeyo ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo booqasho shaqo loogu yimid joogina doona dhowrka cisho soo socota waxaan leenahay mudane ra'iisul wasaare ku soo dhawow magaalada Kismaayo xarunta dowlad goboleedka Jubbaland waxaan isleeyahay waa marti kumati deegaankaagi waa timid waa dalkaagi oo dhulka ra'iisul wasaaraha oo ahayd aad baan ugu faraxsanahay inaad timaado haddaan kaftan ku darsado dowladda federaalka waa dowladda Soomaaliyeed oo isteediyada oo dhan iyo Soomaaliya kulli mas'uulka ka ah marka in socodkiinu yaraado oo shaqadiinu yaraato gacantiinu yaraato oo codkiinu ku yaraado isteediyada waxaa arrin iska jirto taa marka waxaan rabnaa inaan idiin sheegno inaynan martina cid u ahayn deegaankiina ay tahay mas-uuliyaddiina saaran ay tahay dhulkaad xukuntaan ay tahay ku soo dhowaada waxaan rajaynayaa insha Allah inaan wixii wada hadal iyo wixii shaqada soo baxday la isugu yimaadaan kala hadli doono aad baan idinku soo dhaweynaynaa soo dhow ra'iisul wasaare mudane ra'iisul wasaare waxaa talaashanabtaada diyaar waa cutubya ka tirsan dowlad goboleedka Jubbaland mudane ku soo dhawow mudane ra'iisul wasaare waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inuu nagala soo qayb galo booqasho lagu yimaado ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Xasan Cali Khayre iyo wafdiga hogaaminayo oo ay la socdaan taliyayaasha ciidamada qalabka sida Soomaaliya taliyaha xoogga dalka Soomaaliyeed taliyaha booliiska mudane ra'iisul wasaare iyo wasiirada saaxiibada hoostaayeen ku soo dhawow magaalada Kismaayo kaafiso iyo shacabkeeda madaxweyne Axmed waa mahadsan tahay dhammaan adiga iyo madaxda kale ee reer Jubbaland waa idin mahad celinayaa soo dhaweynta diiran aniga iyo wafdigayga oo igu horeeyaan wasiirada iyo taliyayaasha ciidamada Soomaaliyeed laakiin si gaar ah waxaan ugu mahad celinayaa shacabka reer Kismaayo shacabka reer Kismaayo waa u mahad celinayaa guud ahaan shacabka reer Jubbaland waa u mahad celinayaa halkan waxaa ka muuqata farxad iyo reynreyn waa ogahay inaad qoraxda taagnaydeen waa ogahay inaad na sugayseen laakiin waxaan rabaa sida aad noo sugayseen inaan idinkugu sheego sidaas iyo si ka badan inaan raalli idinkaga nahay aniga iyo wafdigaygu waxaana aad idinkaga mahad celinayaa qoraxda aad taagnaydeen waxaan leeyahay ilaahay ha idin dhib yareeyo laakiin soo dhaweynta waa idinka qabnaa waxaan rabaa keliya ugu dambayntii annagoo isarki doonna intaan magaalada joogno kalkii horoo nimid Kismaayo waa u sheegay madaxweynaha in magac cusub loo bixiyo qoraalkiina ma arag anigu ayaantii waxaan idhi madaxweynuhu Kismaayo ugu imow maxaan idhi kal furan kibis duwan kalluun shiilan haddana kaafisaa laydinkugu daray waana ogolahay waa mahadsantihiin